السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكم waxaan ka salaamayaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta jooga adduunka daafahooda. Waxaan rabaa inaan si gaar ah u salaamo heer North America, especially heer Columbus, Ohio. Waa u jeedaan alxamdulillah rabbil caalamiin waa nabadimi. Columbus baan joogaa. Waxaan garabkayga fadhiyo walaalkay DJ Shuaib oo ma sha Allah maanta soo dhaweeyay. Waxaan leeyahay thank you soo dhaweyntaada quruxda badan DJ. You're welcome. Assalamu alaikum. ummadda Soomaaliyeed meel walba aad joogtaan walaasheeda nasteexa indo welcome to Columbus loo soo dhawow arin yar ku soo qabatay safarka inta ku soo jirtay mana u sheekan kartaa baan waad mahadsantahay horta DJ aad baa mahadsantahay horta alxamdulillah waa nabadini waad ii jeedaan arin yar baan ku soo dhacday markaan soo soconay dee waad ogeydeen kolba show inaan halkan ku lahayn aniga walaalkay DJ Subeer markaanu ka soo degnay airportkii Chicago waxaanu cabaar waana la leexsaday oo dhowr saac baan la haystay waxaan ku haystay wax kale ma aha waxaan u tagnay meeshii flyerkaygii oo yaala Shuaibo waxaan u tagnay ciyaaraha iyo meeshaan u socono oo dee arrimihii dadka fankeena ku saabsanaa baa miiska nala soo saaray waxaan ku yiri halkaas aad socotaan runtii horta naxdin bay ahayd saacadana waan la haystay laakiin alxamdulillah waa ka badbaadnay oo waan joognaa hadda waa kan dawaan nabadnimi oo waa tadii jeedin dawaashadan fadhiyo laakiin waxaan ka xumahay Shuaibo runtii alshan heerkaas inay cadaawadii fanka ay gaarto horta aad baan ugu xumahay taasna waxaan ugu gudbayaa kaliya inaan nabad joogo jimcahan uu yahay insha Allah 25 bisha showguna u dhici doono inshallah وانا كحومها عداوداس ay gaarsiisan tahay shooyadii iyo fankii Soomaaliyeed inuu heerka gaaray waxay sii kordhinaysaa oo niyad jab mooyaane de wax kale ma sii kordhinayso de xagga fanka imaanaya laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin kolba qofkii rabay inuu showgaasi baaqdo oo suurta gelin gaaladuna nama taqaano anaga nooma taqaano inaan anagu fanaaniin nahay nooma taqaano waxaan nahay laakiin qof un baa u tagay Soomaaliba u tagtay Soomaaliya لكن الحمد لله وجهنا ونرجع معها إن شاء الله لا تنشنت بش